madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaareyaal ka soo taliyay Soomaaliya iyo sidoo kale mudanayaal ka tirsan baarlamaanada Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay si weyn uga hor yimaadeen heshiiskii maalintii shalay magaalada Addis Ababa ay ku kala saxiixdeen Itoobiya iyo Somaliland oo dhigaya in qayb ka mid ah xeebta Somaliland Itoobiya ay yeelanayso. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook waxa uu dhignaa sidani: heshiiska damaca guracan ee Itoobiya ay ku doonayso dhul iyo bad ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu muujiyay dareenka xooggan ee shacabka Soomaaliyeed, waana mid mudan in aan la dhayarsan khatarta ka dhalan karta haddii lagu soo xadgudbo madax bannaanida iyo midnimada dalkeena. heshiiskani waxa uu baalmarsan yahay shuruucda dalka iyo xeerarka caalamiga iyo kamidowga Afrika, waxaana uu dhaawac ku yahay wadajirka iyo xasiloonida dalalka gobolka. sidaasi awgeed waxaan cadaynayaa in cid kasto ku lug leh ay ka galayso taariikhda baalmadow isla markaasina ay qaadanayso mas'uuliyadda cawaaqib xumada ka dhalan karta. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isna qoraal uu soo dhigay waxa uu ku yiri: heshiiska sharci darrada ee maanta ay wada gaadheen ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Somaliland waxa uu xadgudub ku yahay madax bannaanida dalkeena, waxaana uu ka hor imanayaa qawaaniinta adduunka. dowladda Itoobiya waxaanu ugu baaqaynaa inay ilaaliso daris wanaagga iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya labadeena dal. waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan inay u midoobaan ilaalinta midnimadooda, karaamadooda iyo khayraadka dalkooda. dambayna dowladda federaalka waxaan ugu baaqayaa in arrintani ay ka soo saarto go'aan degdeg oo ay ku cadaynayso mowqifkeeda iyo waxay kala socoto heshiiska sharci darrada ah. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu yiri: waxa wax lala yaabaa aadna looga xumaado ficilka ay ku dhaqaaqday dowladda Itoobiya kaasoo xadgudub cad kuwa qarannimada Soomaaliyeed sidoo kalena xasilooni darro ka abuuraya gobolka Geeska Afrika. ilaalinta gobonnimada iyo siyaasadda qaranka Soomaaliyeed waa mas'uuliyad dastuuriya oo dadka Soomaaliyeed u wakiisheen dowladooda. ficil kasto halis gelinaya mabaadi'daasi waa in dowladdu ay ka qaadataa tallaabo cad oo u dhiganta ficilka ay ku dhaqaaqday dowladda Itoobiya. go'aanada masiiriga ee taabanaya madax bannaanida qaranka waa inaan meel uga soo wada jeedsano, isla markaasina aan ka hortagno damaca Itoobiya ay ku doonayso inay ku boobto qayb ka mid ah dhulka iyo biyaha Soomaaliya, taasoo ah dhaxalka ay leeyihiin ubadkeenu. waxaan rajaynayaa in xukuumaddu ay qaadato go'aan u qalma ficilka xadgudubka ee ka soo yeedhay Addis Ababa. dadka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa inay muujiyaan isku duubni xilligani adag. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre isna qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook waxa uu ku yiri: waxaan si xooggan u cambaaraynayaa heshiisku sheega ay Addis Ababa ku gaadheen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi, kaasoo xadgudub weyn oo lagula kacay qarannimada Soomaaliya. Itoobiya iyo Soomaaliya waa laba dal oo darisa oo kala mudan isxaq dhowr iyo wax wada qaybsi ku dhisan is-ixtiraam qarannimada dal walba. waana waxaan la aqbali karaynin in Addis Ababa ay maanta ku tallaabsato qaadashada qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya. haddii aan nahay madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed waa inaan u midownaa ka hortagga tallaabadani Itoobiya ay isugu dayayso qabsashada qayb ka mid ah biyaheena, sidoo kalena lagu tirtirayo mabaadi'dii lagu aasaasay ururka midowga Afrika, gaar ahaan qodobka afraad farqadiisa ba. marna ma aqbali doono ficilka noocan oo kala ee mugdiga gelinaya jiritaankeena. waxaan ugu baaqayaa dowladda Itoobiya inay ka laabato arrintani oo ay ilaaliso nabadda iyo xasiloonida iyo darisnimada. madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan u soo jeedinayaa inay arrintani degdeg uga bixiyaan jawaab u qalanta, ayna u diyaar garoobaan wixii falcelin midaysan ah oo loo baahan karo. madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa mas'uuliyad ka saaran tahay ilaalinta midnimada dhulka iyo badda Soomaaliya. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sidoo kale mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa isaguna waxa uu yiri: maamulka Abiy Ahmed ee dowladda Itoobiya waxa uu ku xadgudbay gobonnimada iyo madax bannaanida qaranka Soomaaliya. waxa kale oo uu ku xadgudbay
xeerarka qaramada midoobay midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD oo dhammaantood adkaynaya dhowridda madax bannaanida iyo gobonnimada dawladaha xubnaha ka ururadaasi anigoo ku kalsoon in laanta fulinta labada aqal ee baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka bixin doonaan jawaab u qalanta xadgudubka maamulka Abiy Ahmed ayaa waxaan adkaynayaa in daqiiqadani ay tahay tii midnimada iyo wadajirka lagu wajihi lahaa halista qaranka iyo damaca guracan halista qaran iyo damaca guracan ee Itoobiya hadallada hanjabaada ee maalmihii ugu dambeeyay ka soo baxayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxay ahaayeen kuwa walwal tallaabada uu qaaday maantuna waa qariska tuur waana mid halis ku ah daris wanaaga labada dal gobolkana u horseedaysa xasilooni darro siyaasiga Faarax Macalin oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa qoraal uu ku baahiyay barta uu ku leeyahay Egas waxa uu ku sheegay in si caalami ah loo aqoonsan yahay madax bannaanida dawladda Soomaaliya ee federaalka ay fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu matalaa dawladda Itoobiya heshiisna lama saxeexan karo maamul goboleed sidoo kale labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay fadhi ku yeelanayaan magaalada Muqdisho fadhigaasina waxa ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud